Sharciyada gargaarka degdega ah wax walba waxay leeyihiin shuruuc iyo nidaam. Caafimaadka iyo qabka dadka marka la daaweynaayo waxay leedahay sharciyo iyo nidaam loo maray leedahay. Lambar kow, gargaaraha waa inuu diyaar u yahay in loo tababaro xirfadda gargaarka degdega ah. Marka qof waxaa laga rabaa inuu u diyaarsan yahay in loo tababaro gargaarka degdega ah. Horta qof aan u diyaarsanayn inuu dad garab ku siiyo ama u gargaaro, qof aan u diyaarsanayn wax ma gargaari karaba. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa qofka dhibaato gaarsiinayo, waxaa laga yaabaa inuu dhibaatada uga sii daro ama naafo uga dhigo. Maxaa yeelay waxba ma yaqaan soo ma. Dad waxaa jira oo cirbadaha sida dadka loogu duro aan aqoonin oo meel qaldan ugu duraayo dadka naafo ka dhigaayo. Iyo dad wax daaweyn karin oo dadka iyagaba inay naftooda waayaan khatar ugu naqaayo. Marka qodobkaas waa kaasaa marka ha la iska ilaaliyo wax la barto. Qodobka labaad waa inuu yahay ruux xilkas ah. Horta hore aqoon kaliya wax tari mayso. Waxaa loo baahan yahay qofkan inuu qof caqli leeyahay. Dabaal wax barto lama rabo. Lamana rabo qof oo ilmo ah oo waxba ka fekerin oo wax barto lama rabo. Waxaa la rabaa qof weyn oo caqli leh. Waxaa la rabaa cilmi lagu dhigay caqliga kaasho. Marka cilmiga caqliga in la isku darsadaa la rabaa oo qofka aad ku daaweyn kartid. Qodobka saddexaad waa inuu doortaa labo ruux haddii uu shil dhaco. Lacalaba meelaha qarax ka dhacay ama dad meel ku duntay, guri ku dumay. Marka ama baabuur shil galay. Marka dad dhaawacmay soo ma. Dadkaas dhaawacmay waxaa la rabaa inaad daaweyn kartid. Qofka aqoon kale hadaad tiraahdo hadaad tahay meesha kaliya qofka aqoonta kaliya leh oo wax daaweyn kara adiga meesha ilaa ka joogtid. Waxaa la rabaa dadka oo shilka galo dhan inaad daaweysid. Waxaana ku daaweyn kartaa inaad dadka u kaalmeeyo aad raadsid. Muhiim ma aha dad kale inay aqoon leeyihiin. Marka hadaad aqoon leedahay dad kale way ku kaalmeynayaan, dadka way ku tusayaan, adigana waa daaweyn gargaarka degdega u sameeyay inta oo dhakhtarka imaado. Marka qodobkaasna waa sidaas. Qodobka afraad waa in la helaa wax qabad degdeg ah haddii uu jiro dhiig bax, neef qabato, miyir beel iyo sumowid. Waxyaalaha ugu badan oo dadka ku dhaca waxaa ka mid ah dhiig bax culus inuu qofka dhiig baxo dhaawac soo gaaro ama shil galo. Neef qabad qofka in lagu soo boodo oo naqas ku xiro meel hawo hadda markuu meel ay gubato oo kale. Qofka oo meesha oo laga soo saarayo waxaa laga soo saaray qofkii oo garaab si waxba gaarin. Wuxuu ku neef qabatay hawadaas kulaylka ah. Qofka hadduu oxygen waayo oo oxygen badarkiisa kaarboon iyo waxyaalo kul oo naha ay ku dhacaan. Qofkaas waxaa suurtagal ah inuu meesha ku dhinto ama uu suuxo. Marka neef qabatay waxaa kale oo kamid ah miyir beel qofka inuu iska suuxo. Waxaa kale oo kamid ah sumowid qofka in suum la siiyo. Marka casharkaas la fahmo.